sidee maskaxdaaga kobcin kartaa ilmaha 4 ama 5 bilood jira? Ilmaha da'dan jira wuxuu u dhoola cadeynayaa una hadaaqayaa si kedis ah. Wuxuu isku dayayaa inuu koobigareeyo hadalkaaga iyo dhaqdhaqaaqaaga. Wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro. Ilmahan oohintiisu way kala duwan tahay markuu gaajeysan yahay iyo markuu xanuun la ooynayo. Indhaha ayuu la raacraacayaa walxaha ama qofka u soconaya hadba dhinac. Wajigaaga ayuu si qoto dheer leh u eegaa. Indhihiisa iyo gacmihiisu way wada shaqeeyaan sida haddaad wax u dhiibto waa uu qabsan karayaa. Ilmahan lugihiisa ayuu dhulka ama meesha markaa uu jiifo ku riixayaa hadday tahay meel adag si uu isku rogo ama si uu gadaal ugu durqo. Haddaba waalidka waxaa lagula talinayaa si ay u kobciyaan maskaxda ilmahooda da'dan jira inay ilmaha u sameeyaan wuxuu jecel yahay sida inay la ciyaaraan oo isha ku hayaan, inay u dhoola cadeeyaan ulana hadlaan si naxariis leh. Ka daba dheh wuxuu ilmahaagu dhaho. Dee ilmahaagu hadal dhaho hadalka uu dhahay ka daba dheh. Waalidku waa inuu bartaa marka ilmihiisu xanuun loo oynayo iyo marka kale. Ku caawi inay isla shaqeeyaan gacantiisa iyo ishiisa adigoo alaabo ama walxo ag dhigaya. Ilmaha ku dhiirigeli inuu gurguurto ama isrogo adigoo seexinaya meel adag. Da'dan way ku adag tahay inuu isku rogo ama ku gurguurto meel jilicsan. Waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan. Fadlan subscribe igu caawi.